barnaamijka isxilqaan wuxuu ahaa alif madaxeed. barnaamijkan sidiisaba waxaa muhiimdisay oo qalbiyadooda ku soo dhacday madaxweynaha jamhuuriyadda dimuqraadiga Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo ka damqaday dalka soo u burbursan yahay kadib markaan burbur 30 sano ku jirnay iyo dagaalo shaqeeye dawlado kalena ku meel gaar ayna soo mareen wadanka soo mareen ayaa wuxuu ahaa madaxweynihii u horeeyay ee yira waa duminay aan dhisano saas ay ku bilaabmay kadib waxa la isla qorsheeyay sidii loo dhisi lahaa goobaha danta guud ee dadku ka dheefsan karaan ama wax ku qabsan karaan oo ay ka mid tahay goobtan aan dhex taaganahay ee sida wariyaasha ku sheegeen loogu talagalay wacyigelinta iyo hanuuninta dadweynaha ee tiyaatarka qaranka ah ee Soomaaliyeed halkii lagu kulmi jiray xafladaha lagu qabsan jiray barnaamijyada dawladda xataa qaar lagu qaban jiray jaamacadaha ku qalin jabin jireen madaxda ku shiri jireen marka shirar caalami ah noo imaadaan ay ku tiilay goob madaxtooyadii u dhow faras magaalihiina ah oo shirarka iyo wax walba lagu qabsan jiray ayay qalbigiisa ku soo dhacday inaan dhisano waxa ku xigay maktabadda iyo madxafka taalooyinka qaranka oo kulligood saaran wadada Makka Mukarramo kadib qorshooyin dhowr ah la sameeyay sidii loo kala hormarin lahaa goobahaas iyo wixii say u kala baahi badan yihiin waxaa nasiib u yeeshay dhagax dhigi koowaad tiyaatarka qaranka in la dhagax dhigo dhismihiisaas ku bilaabay madaxweynaha uu ku dhawaaqay in wadanka aan dhisano kuna dhisano xoogeena iyo maalkeena iyo maskaxdeena ayaa ra'iisul wasaaraha dawladda federaalka mudane Xasan Cali Khayre ayaa wuxuu magacaabay guddi ka shaqeeyo isxilqaan hawsha isxilqaan ee baaxadda weyn leh guddigaas ayaan aniga madax u noqday guddigaas ayaa wuxuu sameystay qorshayaal dhowr ah oo uu sharci ka dhigtay inuu ku shaqeeyo waxaan la kulanay wasaaradaha dawladda iyo hay'adaha dawladda waxaana sameeyay jadwal ah in horta wasaaradihii xoogooda iyo maskaxdooda iyo maalkoodaba hay'adihii dawladda ay ka qayb galaan dhismahaas baaxadda leh ee wadanka aan rabnay inaan dib ugu soo celino quruxdiisii waxaan u xilsaarnay wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada in ay qabato jadwalkaas oo ah hay'adaha dawladda iyo maalin walba mid ku qoran way ogolaadeen hay'adaha waxay ku soo darayeen wixii agab ay heli karaan hadduu yahay agab nagaasadeed hadduu yahay agab dhismo hadduu yahay qalabkii meesha lagu dhisaayay cid walba iyo tabarteed